السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوضا ميل والبعض نقد داونيسو كسو دواو خيبتي سيديداد شكلي سحرديد. qaybta toddobaad ee sheekadii saxardiid waxay inoo joogtay caawa waa habeenkii xagaaga kala barayay waana habeenkaa sugayay ee sanadka dhan aan tirinayay qaybta sideedaadna waxay ku bilaabmi doontaa sida tan waxa weeyaan inaad xasuusan tahay mooyaane habeenkii walaalkay tagay dabadeedna soo noqon walaalkay xasuustiisana habeen iyo dharaar midna madaxayga kama bixin dartiisana aanay biyo iyo baad midna aan ii dhadhamin jiif iyo joog midnaba nafteedu u diiday marka hadda waxaan go'aansaday inaan ka daba tago oo aan raadkiisii maro amba waan helayaa oo waan guulaysanaa amba sida u tagay soo noqod la'aan ayaan u tagi kadibna intoo wax yar aamusnaa ayuu haddana raaciyey haddaba markuu habeenkii laba ee xilligan sugaya ay gaarto ee mawjada aad garanaysa timaado waxaan fuulayaa doon yar oo halkan hadda ku aasan waxaad yeeshaa marka intaad si fiican diyaar u noqoto aniga iyo doontaba natuur oo na raaci mawjada birri casirkii markay tahay haddaan soo noqon waayo sidaadii guriga tag oo intaad buurtii hoos taagto waxaad tiraahdaa amar eebaa dhacay anyaalana tag sidii soo gali oo u tagay mana soo noqon intaa markuu maqlay ayaa inankii saxardiid wadnuhu isgaraacay oo baqdin iyo cabsi gashay markaasoo is yidhi afka kala qaad oo hadal intaanu waxba oran ninkii oo caraysan baa ku qayliyey miyaanan ku ballamin in aanad waxba ii weydiin waxbana isku kay hortaagin saxardiid baa intuu madaxa lulay iska foorarsaday ninkiisa intuu kacay ayuu bacaad halkan ah oo tuuran qoday kadibna ka soo saara doon yar oo qof deeqdo markaasoo intuu doontii xeeliga dhigay oo dhex fariistay u digtoonaaday socdaalkiisii lama yaqaanka ahaa wax yar kadib mawjadii la sugaya ayaa soo dhacday inankii saxardiid baa isna dacalka cuskada doontii markay mawjadii noqo istirina ninkii iyo doontii oo ka daba tuuray cabaar buuna dabadeed sii fiiriyey ilaa iyo ninkii iyo doontii ka qarsoomeen isna halkiibuu habeenkii ugu dhammaaday maalinnimadii dambena ugu xigtay markaasaa isagoo sidii u fadhiya dhagaxii oo sugaya anyaalle ayaa casirkii ballantu ahayd gaartay hase yeeshee intii cadceeddii dhacday oo dhulka madoobaaday ayaa anyaalle oosan soo muuqan soona bidhaamin saxardiid intuu quus kaga soo degay dhagaxii ayuu cagajiid iyo murugo ugu soo kacay xaggii guriga markuu buurta hoosteeda gaarayna isagoo cod dirqi ka soo baxaya oo ku hadlaaya yidhi amar eebba ayaa dhacay anyaalana tag sidii soo gali u tagay mana soo noqon markaasay eridii guriga furantay oo waxaa soo dega ninkii gaabnaay ee buurnaa oo hayo kacsan uur xumina wejigiisa ku taalo haddii oo warkii maqlayna intii ilmo kulul ka soo booday ayuu isaga oo laabtiisa uur ku taalo ka karayso yidhi waa amar alle xoolo jacayl baa ninkeedii dishay dabadeed intuu wax yar aamusay ayuu raaciyey ilaahay wuxuu qoray nin ka baxsan maayo haddiise mawdku igu simo oo aan ilaahay kal damba noolaado waa hubaal inaan walaaladay ka daba tago amba waa soo nabad noqon amba sidai ay u tageen ee looga quustay uun baan u tegi la iga quusan saxardiid baa deeta hadal isyidhi ninkii baase ku qayliyey kuna yidhi aamus haddii kale orod meesha aad doonto tag saxardiid intuu madaxa lulay ayuu foorarsaday isaga oo murugo iyo tiiraanyo garbihii yaryaraa isku rogmadeen markii haddana sanadka la dhammaaday ee xagaagii kala bargaaray ayaa ninkii saddexaad isna intuu saxardiid kaxaystay isku sii daayay xaggii badda habeenbarkii markii ay gaartayna intuu isna doon yar fuulay ayuu saxardiid ku yidhi waan tegayaa siday walaalihii u tageen marka haddaan soo noqon waayo birri casirkii waa ilaahay amarkii oo sidii soo geli ayaan la u tageen ayuu samaalana u tagay dabadeedna intuu dhex fariisto doontii ayuu diyaar u noqday markay mawjadii timidna saxardiid baa sidii oo kale tuuray halkii buuna ku sugayay isaga intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii sideedaad ee sheekadii saxardiid السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوضا ميل والبو aad naga daawanayso kusoo dhawo qaybtii sagaalaad ee sheekadii saxardiid
qaybta 8aad waxay inoo joogtay markay mawjadii timidna saxardiid baa ka daba tuura doontii halkiiba uu ku sugay qaybta 9aad waxay ku bilaabmaysaa isaga oo calool xumaan la fooraro ilaahayna baryaya inuu soo nabad celiyo saaxiibkiis hase yeeshee nasiib darro ayaa dhacda oo markay casirnimadii dambe gaadhay ayuu soo noqon waayay Soomaale wiilkii yaraa ee saxardiid ayaa dabadeed warwarkii iyo walaacii ka batay markaasuu waxa la wuxuu yeelo iyo meel alla meel u dhaqaaqo garan waayay mar kali ah uunbay kali ahaantii iyo cidladii ku soo baxday saddexdii walaalaha ahaa iyo arrintoodii la yaab ka lahayd way tageen male la'aan iyo meherad la'aan ayaa saxardiid halkiisii halkiiba kadib isagoo cagaha jiidaya xaggii guriga u soo kacay markuu buurtii hoosteeda yimaaday ku dhawaaqay cod tiiraanyo iyo niyad xumaan la googo'an yirina waa ilaahay amarkii oo Soomaale wuu tagay sidii soo gali ayaan leh u tageen mana soo noqon markuu yeedhii dhameeyay iridii ayaa furantay waxaana isa soo taagay habar gabow iyo taagdari la kurboonaysa habartii baa inta iridii cuskatay ee ay hoos soo fiirisay aan fariir la qaylisay maxaa tiri Soomaalana ma tagay inta markay tiri ayaa sidii wax soo tuuray noqotay saxardiidna uu gartay inuu saddexdii nin ee walaalaha ah hooyadu tahay markaasuu intuu ka baqay inay soo dhacdo ku yiri waxbaha nixin hooyo oo aan ku waramay xarigii soo laalaadi kadibna xarigii ay u soo laalaadisay oo uu gurigii ku fuulay markaasuu intuu habartii gacanta qabtay oo meel fariisiyay sheekadii ugu horeysay ee tii ugu dambaysan uu sheegay iyana intii ay dhageysanaysay waxay kala joojin weysataa iyo habata markii uu sheekadii dhameeyay ayay tiri alla miyaanu kuwa dhoof u baahan ba ahayn alla waa xoolo jacayl alla maxaan u digay oo digniintii dhagu u yeelan waayeen alla maxaan waaniyay oo ay waan toobi waayeen halkii bay calaacal iyo baroor kala joojin weysay waxayna tiri sidee idinla noqotay hooyadiin cidla kaga taga markaasay gabtiri oo ay miir beeshay saxardiidna halkii buu biyo ku rusheeyay ilaa ay haddana soo miirsatay deetana intuu ag fariistay ayuu u sheekeeyey oo maaweeliyey iskuna dayay inuu qalbigeeda ku beero waawaan iyo saadaal ah inay inimadii soo noqon doonaan markaasay tiri ayaankee kadibna intay wax yar aamusnayd ayay tiri hooyo bal ma iraaci badda agteeda halkii ay ka ambabaxeen naftu ha ku soo quusatee saxardiidna hadalla'aan ayuu kacay dabadeedna intuu buurtii ka daadejiyey ayuu sii tukubiyey ilaa iyo badda xilligeedii markay dhagaxii badda agyaala gaareen ayay habartii dhagaxii ku fariisatay saxardiidna isaga oo weli u sheekeynaya kana biinaya uur xumaan iyo murugada ag fadhiistay habartii baa dabadeed markay nafteedii yar qabowday oo ay kala nafistay ayay u bilowday sheekadii saddexdii inan ee socdaalka lama yaqaanka ahaa tegay waxayna tiri inamadeyda aabbahood ayaa badmareen ahaa wuxuuna ka shaqayn jiray dahabka muddo dabadeedna wuxuu noqday maalqabeen weyn nolosheedii markaa waxay noqotay mid barwaaqo iyo baraar ku dhisan hase yeeshee meel alle meel oo ka keeno dahabka uu ka taajiray cidna ma aqoon waxaase jiray in sanad walba habeenka xagaaga kala bara inuu isku diyaarin jiray safar halka uu yahay aan la ogeyn maqnaanshihiisuna wuxuu ahaan jiray maalin ama maalin barkiis wuxuuna soo noqon jiray isaga oo kiish weyn oo dahab ah sida dahabkaas ayuu dabadeed soo iibin jiray noogana keeni jiray wixii aanu u baahna oo dhan inta soo hadhana gurigiisa ayuu dhigan jiray haddaba inkastoo aan si walba u baahi baxnay oo aanu baraar iyo dhereg meel sare ka gaarnay sanadna kama uusan joogin socdaalka isla mar ahaantaana ruux bini'aadam ah oo xogtiisa ogaana jirin markay tiisa gaadhay ee geerida ku soo dhawaatay ayuu aniga sirtiisa iiga warramay wuxuu markaa ii sheegay in uu meesha sanad walba u safri jiray intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 9aad ee sheekadii saxardiid السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داودا ميل والبا أد نغا داونيسو كسو دوا قيبتي توناد ee sheekadii saxardiid qaybta 9aad ee sheekadii saxardiid waxay inoo joogtay waxuu markaa ii sheegay in meesha oo sanad walba u safri jiray ee uu kiishka dahabka ka keeni jiray
inay tahay meel fog oo aan jid loo mara lahayn, dooni tagtaana aysan jirin. Isaguse oo israacin jiray intuu dooni yar oo fuulo mawjad weyn oo sanadkiiba habeenka xagaaga kala bara timaada. Mawjadaas ayaa u qaadi jirtay xeeb fog oo waxa dahab yaala ay tahay ilma aragto, halkaasoo kiishku wuxuu dahab u soo qaadi karo ku soo qaadan jiray. Dabadeedna maalinimada dambe soo raaci jiray mawjada, waxaana qasab ku ahayd oo aad u ilaalin jiray in uu sanad walba waqti go'an diyaar ku noqdo badda xeeligeeda. Haddii waqtiga xagaaga kala bar noqdo, habeenka dayaxa leh ee baddu soo buuxsanto oo dhaafana waxay u ahayd waqti qiimo leh oo ka lumay, wuxuuna sugi jiray ilaa ay sanadka xiga goorteeda. haddaba ba'ayga hooyo maxaa sirtaa u ogeysiiyey, maxaanse inimadeedii ugu sheegay? Sheekada markaan u sheegay ayaa hayikac iyo qalaanqal ugu horraysay. Anaa uurkooda ku beera xoolo jacayl, allah soo dahab iyo lacag nooma buuxaan, miyaanu baahi u qabnaa? Sidoo mid walba u lahaa sidii aabbaha oo kale noqo, waa aniga anna ku inama waayey ee ku gablamay, waa kuwa anigana cidlada qareen iyo ciirsila'aan igaga tegay. Hadalka dheer ee cataabkii calaacalka ku go'an markay dhammaysay ayay intay labadii gacmood wejiga iska saartay oysay jiriiraca leh oo nafbax ah. Saxardiid baa ooyintii intay si xun ugu damqaday qalbiga u qaboojiyey oo kolba wax ugu sheekeeyey. hooyo iska aamus, waxbana naftaada ciriiri ha gelin, aniga ayaa haddii alla yidhaa halkii inimadaadii kuu geli doono, iguna kalsoonaa waxba kaa hagran maayo. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu inimadaadii inoo soo nabad celiyo. habartii ayaa intay madaxa lusho tiri, ayaankee hooyo ayaankee, oo marajo iyo waawaan kale ayaa soo noqodkooda laga qabaa. Saxardiid baa ugu jawaabay, ha ka quusan hooyo, raxmadda ilaahay lagama quusto, anaana ballanku ugu qaaday in aan waxba kaa hagran wax alla waxaad iiga baahato. gal dambe haddii alla yiraana waxaan ku tala jiraa inaan halkay mareen maro oo aan walaalahay raadiyo. ilaahay idinkiina waxaan saadsanayaa in aanu annaga wada nabad qabno kugu soo noqonno. islaantii ayaa intay yar ilkaha caddaysay tiri, ayaankee taasi waa saadaal fog. sanad dhan ayuu haddana saxardiid gurigii habartii la joogay, halkiiba u adeegaa oo wax alla waxay u baahato u qabtaa. cunto hadday tahay, cabid, maaweelo, sheeko iyo wehelnimo. muddo markuu joogaba mar buu waslad ama laba dahaba qaadaa oo magaalada ka soo iibiyaa, dabadeedna lacagta ku soo gadaa wixii ay kolba habartii asaga u baahan yihiin. sidaasoo markuu duqdii u daryeelay ilaa iyo sanadkii dhammaaday. markuu haddana sanadkii dhammaaday ee habeenkii layaabka lahaa gaadhay ayuu inankii saxardiid qalqaalsaday wixii uu u baahnaa lahay socdaalkii badda. kadib inta wixii looxani musaabiir gurigii oo ka heli karayay soo urursaday ayuu ka sameeyey doon yar oo isaga leeg. waxaa kale oo u soo qaatay qarbad oo neef ka buuxiyey oo uu afka ka xidhay, iyo laba sibraar oo yaryar oo midna xoogaa cuntaa ku riday midna biyo ku shubtay. markuu is yidhi xilligii mawjadda ayay gaartayna intuu ka ducaystay habartii oo uu alaabtii qaatay ayuu isku sii daayay xaggii badda. markuu xeeligii yimaada ayuu dabadeed si fiican u diyaargaroobay. ugu horrayntii intuu maryihii iska furay oogadiisii oo dhan xeer mariyey, dabadeed intuu qarbadii neefka ka buuxay laabta ku xirtay si haddii doonida yar la gudoonto aanu badda uga hafran labadii sibraar ee yaryarayna. intaas waxayna ugu dhammaaday qaybtii 10aad ee sheekadii saxardiid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso, kusoo dhawow qaybtii 11aad ee sheekadii saxardiid. qaybta 10aad ee sheekadii saxardiid waxay noo joogtay labadii sibraar ee yaryar dhabarka ayuu ku xirtay. qaybta 11aad waxay ku bilaabmaysaa sidatan: ayuu doontii oo dacalna biyaha kula jirta dacalna ciidda dhex taalla dhex fariistay, wuxuuna sugay xilligii gaarka ahaa. ilbiriqsi intaynu dhammaan waa mawjadii oo socota. kadib markii xayligii oo dhan wada qarisay ayay sii noqodkii saxardiid iyo doontii si yare la xawaaraysay.
mawjadii baa saxardiid iyo doontii yareed marna korgeysa marna hoosta gashata waxaas oo bug iyo bac ah. saxardiid doontii yareed ayuu labada dhinac si fiican ugu dhegay markaasuu biyaha indhaha ka dharbaaxaan oo ay dhegaha ku dhuftaan. mararka qaar waxaaba moodaa inuu indhihii iyo dhegihii beelay. dhirbaaxadii mawjada ayaa kadib madaxii yaraa wareeray oo miir tirtay. markaasi intay muruqyadii yaryaraa dabceen oo uu meyd kale oo noqday ayuu doontii fariisay ka baxeen. haddaanu qarbadu laabta ugu xirnayn oo aanu la sabay lahayn saxardiid dambe lama arkeen oo badooyinta maqaadiirta la soo doonatay ayaa qaaxada u ridan lahayd. hase ahaatee naf ilaahay noolaynaya ma baxdo. isaga oo miirla oo biyaha waalani kolba dhankay doonaan u tuurayaan ayuunbaa mar keliya mawjadii in ilaahay uun qiyaasi karo cirka martay. dabadeedna saxardiid iyo qarbadiisii ku tuurtay xeeb bannaan oo meyd ahaan ugu tagtay. waxuu xeebtii yeelaba oo uu miir iyo maanba la'aadaba cadceeddii subaxnimo ayaa soo baxday. iftiin diiran ayay markiiba ifka wada gaarsiisay. saxardiid baa intay cadceeddii jirkiisa yardiirisay kadib qunyar nafta ugu soo noqotay oo indhaha kala qaaday. markuu guuxii madaxiisii ka baxayay oo si fiican ugu miirsaday ayuu wuxuu is arkay in uu jiifo meel doog yar oo qoyan, qarbadii iyo labadii sibraarna dhexda kaga xiran yihiin. kolkaasoo sare kacay oo dhinacyadiisii eegay. cabaar ayaa afkalaqaad iyo yaab neefba ka soo bixi weysay. wuxuu arkay xeeb waxa dahab yaala aan bini'aadam aragna oona maqal kuna riyoon. bal amuurtan iyo yaabkan eeg, ilaahay cilmigiisu fara badana. dahabkii badnaa markuu arkay ayuu xasuustay sheekadii habarta ugu sheekaysay. dabadeedna gartay in meeshaani maqaadiirtu ku soo tuurtay ay tahay xeebtii dahabka. markaasuu intuu qarbadii meesha kaga tegay daawasho golba dhan u socday. intaanuu haddaba dhowr tilaabo qaadin ayuu wuxuu maqlacod u yeerayaa. xaggiisii markuu daymooday wuxuu arkay nin geed hufan oo miro leh il biyo ahna ku dul yaala hoos fadhiya. markaasuu ku soo dhaqaaqay ninkii. haddaba ninkii wejigiisii si fiican u fiiriyey yaab iyo fajac baa alla u keenay. intuu farxad ishayn kari waayey ayuu qayliyey, alla waa Samaale adeer. markaasuu ku cararay oo isiri gacan qaad. hase yeeshee Samaale ayaa halkuu fadhiyey yar ruqaansaday oo kici waayey. saxardiid baa intoo yaaba yidhi, maxaa kuugu dhacay adeer? Samaale ayaa indhaha intuu ka biriqbiriqsiiyey yidhi isagoo cod murugaysan ku hadlaaya, adeer soo dhoweyn la'aan ha iga moodin, waanan kici karayn. sow intay mawjadii dhagax weyn oo dhagaxda xeeliga ka mid ah igu dhufatay. qarqaarka hoose oo dhan budusha igamay dhigin. isha biyaha ah iyo midhaha geedka la'aantood la imaba arkeen oo haraad iyo gaajo ayaanbaa u dhiman lahaa. saxardiid baa beerka u qaboojiyey oo ku yidhi, waa nasiib darro adeer, iminkana allah kuu dhib yareeyo. markaasuu deeto intuu ag fadhiistay halkii ugu sheekeeyey xaalkiisii intay soo kala maqnaayeen kana wareystay wuxuu ku sugnaa intaa oo cidladan yaalay. Samaale ayaa dabadeed yidhi, adeer miyaan sanadkan dhan ee aan soo kala maqnayn wax un xoolaad ah oo aan afkayga gelin? saxardiid baa markaa intuu kacay is yidhi. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 11aad ee sheekadii saxardiid.